marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo oo ku dhiiraday oo ku dhaqan geliyay inuu bixiyo darajada ciidamada qalabka sida oo ah ta ugu horeysa ciidan jira ama qaran jira aynu ku tilmaamnan aynu noqon karo waxaan mar labaad u mahadnaqayaa guddidii ka hawl gashay darajo bixinta oo muddo dheer ku hawlanayd kana mid dhalisay inay soo saarto darajo loo qaybiyo ciidamada qaranka kuwa ciidamada qalabka sida booliiska asluubta iyo waaxda Socdaalka taas mahadnaq ballaaran ayaan u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wixii ay keentay oo ah qaran jira inay noqonay Taliyaha taa mahadnaqa markaynu intaas kaga nimaadno su'aasheena labaad haddaynu gudubno darajadani maxay ku kordhin kartaa ciidan ahaan Soomaaliland ahaan saameyn sidee ku yeelan darajadan oo ah astaanta qarannimo ama dawlad calan iyo dhul iyo shacab wax marka la helo lana kuna daro darajo iyo kala dambeyn ayaa waxaan u arkaa inay tahay tan waxyaalaha rukumada u aasay amba adkeynta qarannimada Soomaaliland iyo ictiraafkeeda soo dhaweynaya marka darajo la bixiyo waxaanay u tahay mid qiimo gelinaysa ciidanka qaranka oo ah mid target siinaysa ama meel ku dhiirido ama meel u kala dambeyn iyo hufnaan iyo ninba midka kale uu ixtiraamo dawaay bini aadamku wax uu baahan yahay wax kala dambeyn ah iyo darajo qofku hiigsanayo iyo mid u haystaba waxaanay